aad bad gudoomiye mahadsantahay taariikhda yani wadaniyada iyo xasuusta iyo aqoonta inta isku darsatay runtii waa hanti tan lafteeda intan macluumaadkan baba hantiya tiyaatarka iyo halganka la soo maray iyo waxyaalaha Soomaalida inuu la gaarsiiyay dhaqankeeda ilaa bariga fog waqooyiga Kuuriga waxay ku taalaa bariga fog bay ku taalaa marka waxaan rabaa inaan wax iska weydiino adigu intii aad ku dhex jirtay baarlamaanka waxyaalihii aad caanka ku noqotay rag adigu ka mid tahay rag kula mid ahana waa jireen sida Maxamed Cabdi Yuusuf oo kale waa arinta badda ee Kenya ay inagu qabsatay baddeena inagu qabsatay anu kale yaray bixintaasaan u helay bad la isku haystaa ma jirto waa badna lagu haysto waa shaarkaaga aad gashan tahay oo iska kala laadiye aan ka deerto kugu qabsado oo kale arintan badda horta sidee ku bilaabatay horta waxa weeye aad baad u mahadsan tahay inaga iyo Kenya khilaaf badeed weligii inama soo dhaxmarin khilaaf waa jiray inaga iyo Kenya khilaafka jirayna wuxuu ahaa mid uleed iyo dadeed meeshan NFD la leeyahay waxa raaciyay Ingiriiska dadka oo cod ku Ingiriiska u weydiiyay cod yani meeshay raacayaan ayaa absolute majority waxay yiraahdeen Soomaaliya laakiin Ingiriiska ayaa toos u raaciyay xorriyadda kolkuu Kenya siinayay 63 marka khilaafkaasi kolka wuxuu ahaa khilaaf ay dawladda Soomaaliya ay wado oo ay leedahay dhulkaas waa inuu xorooba oo ama Soomaaliya soo raaco ama gaar ay isku taagay horta waa inuu xorooba oo Kenya ka xorooba khilaafkeenu dhul buu ahaa inaga iyo Kenya bad waligeed ma dhicin waxaan ku sheegayaa marka Abriil 2009 waxaa la saxay heshiis memorandum of understanding isfahan dhex maray xukuumaddii Umar Abdirashiid oo hogaaminayay iyo xukuumaddii Kenya heshiis baa dhex maray oo ah heshiiskaasi kolkaa wuxuu ka hadlayay yani badda iyo waxaas ka hadlayay arintu kolkay halkaa marayso waxaa saxeexay wasiirkii qorsheynta Soomaaliya ninkii la odhan jiray Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu la saxeexay wasiirkii arrimaha dibadda ee Kenya Moses Wetangula ayuu la saxeexday saxeexaasi markii uu dhacay dadka Soomaaliyeed yani badankiisu arinta waa liqi waay waxaan filayaa August kowdeedii baarlamaankii Soomaaliya waa baarlamaankii 8aad go'aan dhaxalgal ah ayuu qaatay oo muxuu ahaa qaraarka uu qaatay wuxuu ahaa waxa loo bixiyay dhaxal dhowr macnaheedu waa maxay macnaheedu waxa weeye bad berri iyo hawo ilaa dawlad Soomaaliyeed oo shicibka Soomaaliyeed soo doortay ay soo baxdo cid ka hadli kartaa ma jirto waxa weeye waa qaraar yaala ilaa maanta yaala haddaan kuu sheego 342 xildhibaan ayaa shirka goobjoogaha codkii markii la qaaday 333 waxay diideen oo tuureen muxuu ahaa heshiiskii memorandum of understanding ayay meesha ka saareen 9 baa waxay yiraahdeen dib ha loo dhigo
dib ha loo wasaas inta kale qashinkii ku qubeen ku tuureen inta kale qashinkaad ku rideen marka ها ما waxba la soo qaraarka magac baa loo bixiyay dhaxal dhawr baa la yiraahdaa dhaxal dhawr waa qaraar aad iyo aad muhiim u ah oo dhaxal gal ah cid ku xad gudbi kartaana ma jirto wasaas marka horta badeenu halkay taala halkaas weeye koo waxay taalaa maxkamad ogolkaas xukuumadii jirtay inay waxaan filayaa tii adku xasan kolku yimid ayaa maxkamadda kiiskii la geeyey maxkamaddaan ka sugaynaa go-aankay qaadato ayaan sugaynaa laakiin cidna kama hadli karto dowlad Soomaaliyeed oo ka hadli karta ma jirto yani arinta qaraarkaasi laakiin maxay u qaadatay gudoomiye markii heshiiska saxay abriil buu ahaa sida aadna noodka ku haysatay idinkuna August baad ka hortagteen inta ma halgan baa lagu jiray qaraarkaas lagu diyaarinayo mise maxaa intaas afar bilood maxay u qaadatay inaad ka hortagtaa waxay ahayd baan filayaa baarlamaan baa baxay waasaas oo baxay kii toddobaad ayaa xilligiisii halkaa ku dhammaaday kolkaa waa baarlamaankii cusbaa ee kolkaa sideedaad ayuu ahaa marka taariikhda marka la eego waad cadaysay waxaad tiri Kenya inagu dhul baan isku haysan jirnay iskumayna haysan jirin weligeena badna iskumayna qabsan marka waa maxay ujeedada rasmiga ah ee Kenya ka dambaysa inay ilaa hanka inta leeg ama ku darasiga inta leeg Soomaalida ku samayso ma anigu waxaan isleeyahay waxay aragtay Kenya malaha waxay istiri Soomaaliya maanta wax waa laga qaadan karaa okay taala malaha Soomaaliya waxba laga qaadan karaa bay istiri laakiin wax kale oo Kenya ay bad Soomaaliyeed ku ngureysa meesha ma yaalo halka marka taan baa soo cadaatay gudoomiye aad waxaad ugu dhuun dalashay inta badan arrimaha gobolka aad uga hadli jirtay markay timaado in la ilaaliyo madax banaanida Soomaaliya dhulka Soomaaliya aad bad active u ahayd markaad runtii aad xildhibaanka ahayd dadka qaarkoodna waxay yiraahdaan wadaniga lagu hirto ayuu ahaa jiray Cabdi Xaashi Cabdilaahi marka hadeerto arinta gobolka Ethiopia tusaalahan soo qaadana Ethiopia isbedel baa ka dhacay 2-3 sano ka hor Ethiopia sidii ay siyaasadda Soomaaliya ku ahayd iyo Ethiopiadan maanta sida siyaasadda Soomaaliya ku tahay labadaba goobjoog wiil hay kaaga dhig bal laba fasiraadood ku samee haday isku fasiraatayna noo fasir yani Ethiopia waa dal darisaynu nahay horta kolkaad arintaas si dhaba ugu dhabagasho waxa weeye waa dal hadda populationkeedu u boqol kor u dhaafayo waa landlocked yani bad ma leh waa populationka baaxadda leh bad ma laha innaga Soomaaliya waxaynu leenahay badda ugu dheer Afrika waa 3,300 iyo siyaado waad arki kartaa populationkeennuna wuxuu yahay yani trayer way ma filayo inay marnaba ay Ethiopia yani Soomaaliya oo badda leh inta leeg populationkeeduna uu sidaa yahay inay iska ogolaanayaan inay badlaan ahaadaan adigu siyaasadda kolkii hore de boqortooyo waxay ahayd rabtaba Afrikaba geeska Afrika ma ogtahay Menelik xilligii in Cabdillah Xasan Koor Ethiopia lagu sheegayaa ma ahayn Ethiopia waasaas Abyssinia qoran la oran jiray jirtay waa Abyssinia maxay ahayd waxa weeye waa axmaarada iyo nimankan Tigreega
abaasiiniya la odhan jiray yacni waxayna ahaayeen 3 adigu 4 gobol 4 province laba axmaarada purely iska leh Gondar iyo Gojam baa la yiraahdaa wasaas midna Tigray yaa lahaa midna Oromada waxbay ka deganayeen axmaar waxbay ka degan yihiin Afartu waxbay ka degan yihiin wala la yiraahdaa waxa weeye waa province-gaas wasaas marka waxaan kuu sheegayaa Ethiopia xilli bay soo martay boqortooyadii Abyssinia xilli bay soo martay xilligay soo martay waxa weeye 3 nin ayaa boqor ka ahaa laakiin waxa jiray boqorooyin yar yar oo qolo waliba yani tuulo waliba hoos u lahayd nin Tewodros la oran jiray wuxuu noqday ninkii waa yar yahay ma ogtahay wuxuu noqday nin fardafuulka kolkuu yaraa ku fiican muxuu hantay tuuladoodii dhalinyaradii da'diisa ahayd ayuu hantay wuxuu noqday tuuladiisii inuu xukumo kadibna yani siduu kolba qaar ugu duulay oo qaar u tay ayuu wixiiba horta dhulkii xabashida gaar ahaan gacanta wuxuu ku dhigay Gondar iyo Gojam Menelik Axmaar buu ahaa laakiin waluu joogay Talyaaniga iyo Ingiriiska ayaa mid waliba daneeyay Ethiopia Talyaaniga wuxuu xiriir la samaystay Menelik oo walo meelayda jooga Ingiriiska wuxuu isku dayay kan kale inuu la yeesho kan uu diiday wafdi baa loo soo diray wafdigii buu diiday waliba yidhi caradoodu xataa lugahoodii in carada Ethiopia qaadin wasaas in la tagin wasaas Ingiriisku waa ku soo duulay uu dilay then Menelik ayaa wixii hantay markaasuu dhaqaaqay meeshan Addis Ababa la yiraahdo waxa la oranayay Finfinni baa la oran jiray waa Menelik ninka bixiyay magacan Addis Ababa ee ka dhigtay caasimad Oromana ku duulay ku fiday dalkii ay qabsaday hatta Soomaalida qayb fara badan ayuu halka isagu qabsaday dhulka Highlandska ayuu qabsaday Ethiopia kolka Menelik wuxuu sheeganayay badda ayuu dhundiray sheeganayay anaale Soomaaliya waa qayb Ethiopia leh ayuu qabay fikirkaas isagoo qaba ayuu socday oo dhintay waxa bedelay in Haile Selassie la oran jiray Haile Selassie Ingiriiska aad buu Ingiriisku u soo dhaweeyay oo qaatay marka qayb la yiraahdo Ogaadeniya theory Haile Selassie ku wareejiyay oo qayb hadda dhulkan koonfur specially saaran qaybna wuu la haray dhulka Soomaalida oo wuxuu u bixiyay hawd iyo reserve area ayuu bixiyay iyadana markii xarakaadkii gobonnimo doonku ay bilaabmeen wajigii labaad ayaa kolkaa waatii leega jirtay leega oo kolkaasi Soomaaliya yani waa xisbigii u dhashay gobonnimada kolka yani dhulka hawd iyo reserve area Somaliland waxaas dhulkan la yiraahdaa waxay noqdeen kolka inay koonfur Soomaaliya kolkii la geliyay trustshipka inay ku biiraan Ingiriisku arintaas uu qoonsaday hawd iyo reserve area ayuu 54 marka wuxuu ku bixiyay wuxuu siiyay Ethiopia
soo ka hortagaya marka unity soo ka hortagaya marka midnimadan Soomaaliya isku yaacsan taas uu diidana iyo quwadda faraha badan sababtuna waxa weeye leego yani wuxuu rabay isagoo dhulka Soomaalida oo dhan gacanta ku haya in isaga ay la doorto laakiin leego talyaaniga yar kolka arinta intuu ka xanaaqay ayuu hawd iyo reserve area-na Hayle Salaasi ku wareejiyay ya marka Ingiriisku 2 jeer ayuu dhul Soomaaliyeed ku wareejiyay Ethiopia marka ka soo bilow Miniliga ilaa hadda kii u dambeeyay MLS fikirkaas saasay u qabaan oo inay yani dhulka Soomaaliya habsadaan qaataan hadda waxa yimid Oromo nina Oromadu waxay kamid tahay dadka gumaysiga xume uu ku dhacay inta ama xabashidu ama Tigray ha ahaadaan ama Axmaar ha ahaadaan dhulkay sida xun u gumaysanayeen weey halka waxa jiray fiiri wax la yiraahdo yani horta cashuurtu ya waxa weeye dadkaas waa beeraley weey Ethiopia dhulka ugu ballaaran Oromaale population-ka ugu badanina waa Oromo kolka laga hadlayo qoomiyad waxa laba noqonaya kolka dhul laga hadlo Soomaalida dhulka baaxadda leh ee labaad leh kolka Oromo laga tago population-ka waxa Axmaarada booska labaad laakiin kolka qoomiyad laga hadlo Soomaalida saddex noqonaysa okay marka ninka hadda kan yani kan noqday prime minister-ka Abi anigu ma filayo Abi inuu fikirkii Axmaarada iyo Tigriga ee ahaa Soomaaliya inay tahay dhul ay iyagu leeyihiin inuu qabo ma rabo laakiin hal shay baan qabaa Oromadu waa qoomiyad aad u ballaaran Soomaalidana waa isku degaan waa isku xiran yihiin waxa dhici karta dhulku waa ku yar yahay Oromada xiriiri buu ku yahay dhulkan Soomaaliduna waa dhulka oo banaan waa ku soo durki karaan waa soo gali karaan waa kolka waa keeni karaan khilaaf waa iman karaa laakiin hadda siyaasiyan uu ka duwan yahay ninkani kuwii hore Ethiopia wixii soo maray uu ka duwan marka laga hadlo dhinaca Soomaalida iyo xataa cadaadiskii badnaa Oromada lagu hayay nafteeda ya uu ka duwan yahay waatay si waxbaad gudoobiye u dhigtay runtiina waxay muujinaysaa sida gaarka xilka soo saartay bal hankan goorta soo bilowday iyo meeshaad weelaysay waxaan xasuustaa markaad gudiga warfaafinta baarlamaanka ahayd adiga iyo saaxiibka Maxamed Cabdi Yuusuf mar aad dood ka qayb qaadateen oo mid kamid warbaahinta Soomaalida dooddaas Ethiopia ku saabsaneed TV-ga waa la xiray warbaahintii maalinta waa la xiray wariyihii wareysanaya waa la xiray ma ahayn Ethiopia kuma saabsanayn maxay ku saabsaneed dooddaas waxay ku saabsaneen meeshan xalana iyo caalamkan Soomaaliya waata عليكم حوالي حرا waxay muujinaysaa oo sida Soomaaliya aysan wadanaha sheeyaha ay kale yihiin marka su'aashu waxay tahay markaad eegto heerka marka laga saaro dariska laakiin hadda maadaama dadka midda daabkeeda haya Soomaaliya ka mid tahay xoogaalnimada Ethiopia markii aad adigu gudiga warfaafinta baarlamaanka kale ku jirtay dadaalka xoog leh ku jirtay maalin walba qayri jirteen iyo maanta faragelintii ay Soomaaliya ku sameey jirtay Ethiopia ay say faragelinta ugu lahayd oo marka qaar kood dadku waxay dhahaan way saameysay idinka shakhsi ahaan oo waxay raadaan dadka qaar kood wasida ay sheegaan Maxamed Cabdi Yuusuf waxyaalaha baarlamaanka uga haray waxa kamid ah oo xagaas ka soo bixi kar waa Ethiopia faragelinteeda Maxamed Cabdi Xaashi Cabdilaahi qiil
buu ku soo baxay meeraada farci dil oo kaga fakaday marka macnaha uu hadalka su'aasha caleed waxa weeye ubuucda Soomaalida Itoobiya ku jirtay haday gabre tahay dad kala tahay maanta adaaba xogaale maanta marka shacabka Soomaalida wadariyiinta halkee heerkee ka joognaa inaynu ka badbaadsanahay ilaa xadseeno hayn shalay okay waxa weeye horta su'aashaadani waxa weeye horta aniga Maxamed Cabdi Yuusuf أنا وصوب حي وحنا ما وح معنا له أو قابك لقو صوب حي أنا جو ساسو ما بتاجر سني لأنه وحوي جيل بخاصة أيه كنتني كوقف لقى سوق هذا يا اللي يريد دوره قف ها واجيل بخاصة دين قف كاسي حتى قبيل كي ما مثله اسكدا قرني مركوتا أردت سيدا كوسو بعدي سيدا ويه ما هين وح يعني في عن دورشة لشيغانا معها ومسوق ماسوق وويني وقت هو دعيه دلكن وي كل كتاسيه دورتا ساسay hayne hadaan anigu soo galayna wax macna loo soo galay ma jiro hadii maxaa Cabdi Yuusuf uu soo galina wax macna loo ka haray ma jirto taas hortaan intaasan kale ah waxaan isleeyahay kulka aan fiiriyo yani Ethiopia ad ka hadashay aniga maxaa Cabdi Yuusuf waaga waxaan ka hadalnay wax badan baan ka hadalnay ma Ethiopia kaliya waxaan ka hadalnay halkan xalane waxaan nidhi waa magaaladii Xamar qayb kamida oo magaalo ajnabi noqotay oo anigoo xildhibaan baan nidhi waagaas xildhibaan baan ahaa ma gali karo ya waa inaan ku galaa warqad iyo ogolaansho halkaas kulka taas dawaaga arintaas halkaas aanu aniga Maxamed Cabdi Yuusuf waxaanu ka hadlaynay taas dhibaatooyinkaas يعني dad ajnabi waxaan anu waxyaaladan qabo waxa kamida ma ku xoroobi karno qof ajnabi naftiisa sidoo kuugu horaa way adag tahay ya leesh kulkaad waxaan isleeyahay dadka Soomaalidu in la isqaato la wada hadlo la isu yimaado oo la isaqbalo oo dalkooda dhibaatadiisa iyagu ay halkeedii raadiyaan laakiin ajnabi halku keeni maayo ma ku keenayo saameyntu marka sidii ma hadlay hadda Ethiopia iyo waxaan leeyahay anigu inayna sidii u akirnay hase yeeshee dad population ka tirada badan iyo badaas waxaan isleeyahay damac waa jiri doonaa waqtiga soo bixbaan garay aad u wahsantahay runtii waxaan runtii aaminsanahay inuu barnaamijkan uu noqon doono barnaamij dhaxalgal ah waliba da'yarta iyo dadka Soomaalida doonay wadankooda inay wax badan ka ogaadaan warbaahinteeda Hurfadh Media oo warbaahin wacyi gelin iyo isugu jirta warbaahin wararka sirdoonka warbixinaha keenta Cabdi maanta waxaan rabaa inaan adiguna shacabka adiga faa'iideysan anaguna kaga faa'iideysano waxaan maqalay in maalintii la dhiibay qalbi dhagax habeenkii qalbi dhagax la dhiibay adiga iyo madaxweynaha wada jooga in taliyihii nabad sugidda qaranka Soomaaliya Sanbalosha idiid arintaas wixii idinku yiri wax laga yaabaa saan u maqalay inay saxay ma habeenka goob joog baad ahayd taariikh baana harasa maanta waxa ka haraya waa taariikh ummadda Soomaaliyeedna arrimaha ay ku jaawareertay ayay runtii ay kamid tahay waa maxay waxa aad ku qanacdeen ama warbixinta sirdoon ee ku saabsaneed qalbi dhagax ee uu taliyo habeenkeeda la wadaagay waa horta waxa weeye waa habeen taariikhda Soomaaliya ku yeelan karta nuqdo madow aniga waxaan maqlay maalinnimadii ayaan maqlay nin baa laga keenay Galkacyo area dhulka oo la keenay Xamar
oo loo dhoofin la rabo in loo dhiibo Ethiopia ninka de askari Soomaaliyeed buu ahaa sargaal buu ahaa dagaalkii 77 raggii galay buu ahaa marka aniga iyo Maxamed Cabdi Yuusuf iyo nin Cabdirasaaq Jibriil leeyra ayaa u nimid madaxweynaha waxaan nidhi warkaasaan maqalay ninkaas oo loo dhiiba Ethiopia waxa weeye dambiga ugu weyn ee dawladdeenu galayso waxaan waa kaaga digaynaa baan nidhi waayahay buu waa ka tagay 4 saac oo habeenimo ayuu ii yeeray madaxweynuhu yani kolkay tahay 10 fiidkii ayuu madaxweynuhu ii yeeray kolkuu ii yeeray inuu tagay telefoon buu diray wuxuu yidhi Cabdi Xaashi yaa ila jooga noo kaale uu yimid wuxuu yidhi u sheeg wixii aad ii sheegaysay wuxuu yidhi ninkaas wuxuu leeyahay anigu waxaan ahaa yani madaxda sare ee jabhadii ONLF dadka qalbi dhagaxay buu leeyahay buu yidhi marka wuxuu yidhi dadka badankiisii waa galeen anna heshiis baan la galay Ethiopia oo waxaan rabaa inaan anigu idhaahdo aan iskeeyo dawladda Soomaaliya cover baan ka rabaa inay ii noqoto inay xarayso oo igeyso waxaan idhi ma isagaa yidhi sanbaloshaad weydiisay sanbaloshaan weydiinayaa su-aasha suyee kolkaasuu yidhi kolkaasuu wuxuu ii soo saaray baasaboorkiisii waa kan fiisihiisi baa ugu yaalla yani waxa weeye annagu hadduuna igeeya odhanna ma geynayno de hadduu igeeya yidhaahdo isagoo codsigiisaas arrinta ku adkaysta aniga halbaa i dhaaftay habeenka ninka ii keen inaan idhaaho keen unbaa isaagtay intaasaa isaagtay habeenkaas marka haddi waxaa aroortiina waa la dhoofiyey intaasaan anigu ka haya dib ma isku aragteen sanbalosh maya mar dambe kulan dambe maya weligay yaallay dib uma arag maalintaas ku gudumaysay waaye aad iyo aad baadsantahay gudoomiye dad badan marka madaxweynaha halkaa wada joogteen uu ninka society ku waramayay madaxweynuhu markaa waa maxay wuxuu doonayay inuu cadeeyo waxa laamaha amnigu u sheegeen ninkaasi ku saabsan inuu maartay madaxda maadaama sidaasaan u qaatay horta kolkuu ii sheegay lees ninkanina wuu ku cadcadaa arrintuu sheegay warkiisa wuu ku cadcadaa ugu dambeyntii Cabdi Xaashi waxaan rabaa laba su'aalood baan kusoo gabagabeynaa barnaamijkan adoo maanta gudoomiyihii waxaa tahay aqalka sare waxaa shalay ama daraad la ansixiyay sharciga batroolka sharciyo badan oo la ansixiyayna way jiraan sharciga batroolka wasiirka batroolka anigu wareysta inta runtii waxayna ahayd maalin ka hor ama maalin ka hor markii sharciga ansixinaysay baa wareysiga ka horeeyay sharciga batroolka aan ansixiseen ma u saarteen khubaro mase ku qanacadeen sida uu yahay haddii aad ku qanacdeen waa maxay faa'iidooyinka waaweyn oo Soomaalida u yeelan karo horta waxa weeye sharcigan batroolku batrool sidiisaba labadaba wuu leeyahay faa'iidana wuu leeyahay khasaarana wuu leeyahay hadda Nigeria oo kale batrool baa laga soo saaraa laakiin dhibaatada ugu weyn buu ku hayaa waxaan u aanaynayaa anigu laba arrimood populationka oo badan iyo tiradiisa shidaalka la helay ee la hayay la soo saara oo badnayn oo kolka ay noqotay
inay dee kooxii taasaan u qabaa. Soomaaliya laba arrimood anigu kolka aan fiiriyo waxaan isleeyahay dhibaato Soomaaliya uma keenayo. labada arrimood maxay yihiin? horta kolka ugu horeysa population-keenu wuu yar yahay. shidaalka la sheegayana waa غير caadi. shidaalka la sheegaya waa غير caadi. anigu Norway ayaan tagay, waxaan tagnay 2012 baarlamaankii 9aad guddigiisii joogtada ah ayaanu tagnay. marka 3 qof yaa noo soo galay, nin geologist ah iyo 2 qof oo badda ka socday memorandum of understanding daba taagnaa. kolka kaasaa projectorkii ku tuuray derbiga, wuxuu yidhi uu ku soo saaray ereygii halkaa ku qoray, wuxuu ahaa Somalia is a very rich country. waddan aad qani u ah. aad qani u ah. oo maxay ku tahay? wuxuu sheegay 7 macdanood oo kuwa qaaligii ku jiraan. waxaa intaa dheer buu yidhi shidaal غير caadi ah oo ah natural gas iyo benziin غير caadi ah. ereygu ku gabagabeeyay wuxuu ahaa nabad baad kula soo bixi kartaan. halkaa intaa kolkuu yidhi dalkiisii buu galay iyo shidaalkiisii iyo wixii noo sheegay. marka anigu kolkaan hadda fiiriyo shidaalka oo la soo saaraa, waxaan filayaa inuuna dhibaato Soomaaliya u keenaynin. insha Allah waxaase laynooga baahan yahay ereyga ninkaas yidhi baan aniga maskaxdayda fadhiya. nabad ya kolka caqli inaynu la nimaadno oo aynu garanno waa dal barwaaqa iyo dadka baahan. ya dalkani sidiisaba waa dal barwaaqa, ma aha oo keliya shidaalka iyo macdanta ninkaas sheegay, beero, xoolo, bad. ya waxaan xusuusnahay annagoo China u soconna 76 transit 3 cisho waxaan ku ahayn meesha la yiraahdo Abu Dhabi. Newsweek waagaa soo baxay. kolkaa waxaa jiray halkan shirkad malay oo u dhaxaysa Ruushka, Soviyetkii iyo innaga, oo kolkaa bilowday yani wax soo saarkii. Newsweek-gaasaa lagu soo qoray article. journalkaas toddobaadlaha waxaa lagu soo qoray Soomaaliya waxay ka helaysaa baddeeda dollar ka badan ka $1 ay ka helaan shidaalka. article-kaas maskaxdayda waa ku jira. imagine kolkaa waxa weeye yani haddaynu badda xataa ka shaqayno waa sida, haddaynu dhulkeenna beerno waa sida, haddaynu xoolaheenna si fiican u dhaqno, war waxaynu nahay dal qani ah. laakiin mushkiladeeni waa maxay? oo aan qabaa bahalkan qabiila weliba idinka dhalinyaradii sidaad uga hortagi lahaydeen, eed u diidi lahaydeen. ya waxaa filaya odayaashayadu yani xil bay iska raadinayaan. dhalinyaro waxaan idin leeyahay xildoon ha noqonin ee xaldoon noqda. ya xildoon ha noqonina ee xaldoon noqda. dalkiinu waa dal qaniya aydan ku baahanayn. waxaan aad iyo aad uga yaabaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga sii socotay, qaxootiga ku ee badda iyo desertiga ku dhamaatay. oo xaggay ka tagayaan? meel kastoo ay fadhiistaan noloshooda kala soo bixi karaan. ya marka wax kale laga tago, marka waxay ku dhamaadeen bad iyo lama degaan.
أنا دلنيرة الصومالية وحن لها هاي قبيل ديدا حلدون نقضة حلدون هالنقننا aad baad mahadsantahay runtii waana dardaaran fiican sharciga batroolka ee gudoomi ma uu quminayaa danta ummadda Soomaaliyeed iyo ilaalinta kheyraadkeeda hadda waxaan filayaa anigu hadda ana fikirkan qabaa waaba kana ku sheegay ani in la soo saaro nabad buu u baahan yahay heshiis buu u baahan yahay waana siyaasiyiinta kuwa laga rabo inay intay heshiiyaan ka heshiiyaan siyaasadda dadkana u soo saaraan kheyraadka marka la eego xeer hoosaadka golahaaga madaxa ka tahay ma wuxuu sharciyada soo saartaan mahal dheeri ayay ku meel maraanoo marka sharciga loo ceeday hal dheeri ay ku meel maraan sax ku meel maraan in gobol kasta senatarada iyo maamul goboleedka senatarada ka jooga ma hal dheeri buu ku meel maraan marka Puntland waxay tiri sharcigaas nooma khuseeyo hada waxa weeye waa khalad ka jira weeye waa khalad ka jira Puntland waxa weeye xildhibaanadani waxay senataradani waxay ka tirsan yihiin aqalka aad baan uga xumahay codkooda way ku diidi karaan laakiin inay ka baxaan aqalka yaani hoolkii ay ka dareeraan aad baan anigu uga xumahay sababtu waxa weeye ma aha Puntland oo kaliya senataradu maxaa la yiraahdaa state kaliya ma aha waxay misaliya qarankii dhan bay matalaan koow state-ka dan uu leeyahay waa meel marinayaan laakiin waa inay cod ama ku diidaan ama ku meel mariyaan ya laakiin intay isolate gareeyaan waxa weeye waa arrin aad iyo aad anigu arrintaasi ma jeclaysan inay codkooda dhiibaan codkooda ku diidaan ayay ahayd arrintan mooshin baa laga keenay waa qodob xeer hoosaadka baarlamaanka aqalka ayaa fasaxaya ya marka ma ahayn adigu siday u dhaqmeen ma aha si fiican way doorashooyinka xagga doorashooyinka labada aqaladiinu aqalka hoose waa ansixiya waraaq baan arkay gudoomiyaha aqalka hoose uu soo diray marwarka qaarkoodna waxa la yiraahdaa awoodda labada aqal ma kala cadda wala isku qasay baa la dhahaa sidoo baa isku qasay inkastoo marwarka qaarkood waxa loo tiriyaa qoliyada ka horeeyay marmarka qaarkoodna waxa leedahay xitaa inta joogtiin waxba si cakirmay ilaa hadda labada aqal awoodooda ma kala cadda marka si loo eego oo dhinaca dastuurkii baa la qasay baa la leeyahay ha marka arrinta doorashooyinka horta marka horeysa arrinta doorashooyinka ka horeyso haddana bal waxaad inoogu xijisaa arrinta kala saarista labada aqal laftooda xalkooda halku maraya adigu khilaaf baa jiray laakiin waa ka heshiinay waa garta khilaafkaasi dib uma jiro wuu dhamaada wuu dhamaaday khilaaf ma jiro haye labada aqal haye waa dhamaaday sharciyadiina ka heshiisay awoodii ma idin kala cadi waxa weeye waa in dastuurka wax badan uu saxaa oo lagu saxaa dastuurka arrinta u baahan fasiraad wax weey sharci ayaa golaha wasiirada soo saaraya ama waxay soo saarayaan qaraar golaha shacabka soo diraya golaha shacabka markuu sharciga yimaado way ogolaanayaan kaba soo qaad biilki idinkeedii soo diraya idinku markaad ogolaataan sharcigi waa inaad u dirtaan ayay ahayd sida dhaqanka caalamiga iyo dastuurkii waxa la leeyahay sida marka hore ku qorneed madaxweynaha inaad u dirtaan madaxweynuhu marka ama inuu diido ama inuu idinku soo celiyo idinku haddaad diidaan iyo haddaad ogolaataan waxa la yidhi aqalkii hoose ayaad u diraysaa adigu waxa weeye meelaha u baahan sixitaanka waa ka mid laakiin hal baan kuu sheegaya dastuurku wuxuu leeyahay fiiri anigii jawaari waxaanu isku qabannay sharcigii ugu horeeyay ee la ansixiyo markay ansixiyeen bay noo soo gudbiyeen waa ka doodnay waa ansixinay markaan ansixinay madaxweynahan u gudbiyey anigu madaxweynahan u gudbiyey madaxweynihii waxa u yimid jawaari oo yidhi maya anaa sharci kasta oo iga bilaabma anaa ku soo gudbinaya aqalka sare kuma soo gudbinayo arrintii waxay noqotay madaxweynihii baa ii yeeray saddexdayada arrintii gallay jawaari yani wax sharciyad ma dambeys wuxuu yidhi aniga sharci aan soo halkaa kulku istaagay
إنه ملا الله صاع سيسنو أيان بس ويوا يعني إيسو علي إسقانو قد بنيا كلك هذا تناسل سمي مركع تناسل سمي أرد خلاف كاس كل كاس ده كل كوابيس كدينا أنا وين عن لهانو مدحوينا أنا قد بينه هذا وحي كدم بي شرعي كستونه أنصحنا وأنا علينا إياه كل مدحوينا وقد بيها وانا خلاف دستوري خلاف دستور مركب محكمة دي الدستور كي يبانيد إن يجرت يدينا ما جرت هذا إن لا دسانا والله كمان مارمان سي خلافية هيدا الدولة دحمرة سي حل وجهه وين أديت بهرتو ما حسنتها قدومي عبد الحاش عبد الله waxaan kaaga mid celinayaa taariikhda waxaan kaaga mid celinayaa xogtaada waxaan kaaga mid celinayaa sidoo kale adeegaad noo haysid hadaan wadda Soomaaliyeed nahay waxaan doonayaa inaan ku siiyo fursad aad dadka Soomaalida u sheegto maanta kulli waxaad joogtaa da kugu filan waa aragnimo iyo odaytinimo waa maxay kelmadda rabtid inaad ummadda Soomaaliyeed u sheegto ee ah maalinta aad xilkan ka tagisid ama ha noqoto maalin dhow ama noqoto maalin dheer maxaa rabtaa inaad kaga tagto wadankan oo ah dhaxal aan kugu xasuusano rabtaa inaad ka qabato shaqadan maanta haysid وسؤال أدق سؤال شادي ويدينيسا sababtu waxa weeye hadda waxaan ku ilaaba garan maayo anigu meel kasta oon erey ka oranayo ereygan leeyahay waxa weeye midna baynu u baahannahay nabad baynu u baahannahay iskaashi baynu u baahannahay qabiil aan ka tagnayno u baahannahay si aynu dawlo waxtara u helo intaasaan leeyahay anigu intaasaan ku taaganahay anigu aad iyo aad buu mahadsan yahay waa gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo runtii waqti dheer aan ka qaadanay aad iyo aad waqti dheer uu nasiyay aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaan rajaynayaa barnaamijkan daawadayaasha qiimaha leh gaar ahaan dhalinyarada inaad aad uga faa'iideysateen talooyinka waaweyn iyo waliba kuwa ku saabsan arrimaha sida mugale uu gudoomiyuhu u qaada dhigay kamid tahay arinta tahriibka kamid tahay arinta ku saabsan qabyaaladda in la dagaalamo iyo in qarannimada dalka hareeraha la iska taago waliba dhalinyarada uu si gaar ah ula dardaarmay aad iyo aad buu gudoomiyaha mahadsan tahay aad baa kaaga mahadcelinayaa thank you so much